ka waran daawada hadii lagu sheegi lahaa ama aad maqli lahayd in duuliyaha diyaaradda aad saaran tahay uu geeriyooday maxaad dareemi lahayd adigu intaan u gudagalin sheekadan hadii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto maasanid mid ka mid ah duuliyihii ka xeenayay diyaaradda Turkish Airlines ayaa waxa ku timid geeri degdeg ah duuliyahan oo ahaa 59 jir ka soo jeeda dalka Turkiga ka xeenayayna diyaaradda Turkish Airlines ayaa waxa uu geeriyooday isagoo ka soo kicitamay magaalo ku taala dalka Mareykanka kuna sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga intii uu gaarin dalka Turkigana waxa uu timid ajasi oo waxa diyaaradii ay ka dajiyeen kabtankii iyo waliba duuliye kale magaalada New York ee dalka Mareykanka duuliyahan ayaa waxa uu maray tijaabo caafimaad bishii Maajo ee sanadkan aynu ku guda jirno waxaana la xaqiijiyay in uu caafimaad qabo wax xanuun ahna uusan qabin mid ka mid ah diyaaradaha Turkish Airlines ayaa si degdeg ah waxay uga degtay magaalada New York ee dalka Mareykanka talaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii uu geeriyooday duuliyihii waday diyaaradda xilli bartamaha looga jiray duulimaadka safarkooda diyaaradan oo ka duushay magaalo ku taala Mareykanka fiidnimadii Talaadada ayaa ku wajahnayd magaalada Istanbul ee dalka Turkiga duulimaadka oo sumadiisu ahayd TK204 ayaa waxa sii waday duuliye kale iyo kaaliyihii duuliyihii geeriyooday waxayna si degdeg ah uga dajiyeen magaalada New York ee dalka Mareykanka ka hor inta uusan geeriyoonin duuliyihii diyaaradda balse markii ay diyaaradda caga dhigatay ayaa waxa geeriyooday duuliyihii diyaaradda ka xeenayay oo xaalad degdeg ah ay ku soo booday duuliyahan oo 59 jir ahaa ayaa waxa uu shirkadda Turkish Airlines u shaqeynayay tan iyo sanadkii 2007 waxa uu ku guuleystay baaritaan caafimaad oo la marsiiyay bishii Maaj kaas oo aan muujin wax caafimaad darro ah ama dhibaato ah oo uu qabo duuliyahan